السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa Maxamed Maxamuud cashkan waxaan ku baran doonaa 10 kan erey meesha saaran ereyga koowaad waxaa loo akhriyaa reservoir haddii aad taangi biyo ku shubatid biyahaasna ay kayd ku yihiin waxaa la yiraahdaa reservoir waa biyo kaydka ku yaal for example aniga guriga deganahay inta badan biyaha way ka go'aan so waxay noo yeesho haan weyn oo 60 litir qaado haantaas waxaa loogu talagalay maalinta biyaha ay go'aan inaynu 60 kaas litir u baxsano inta biyaha ka soo laabanayaan reservoir so maxaan leeyahay we have a reservoir in our home kayd biyo ayaynu leenahay marka reservoir waa kayd biyo inaad kaysatid restate waa inaad wax dhahdid restate waa inaad mar labaad ku soo celisid haddaan ku dhaho can you kindly restate your pointigaada ku soo celi restate your question su'aashaada ku soo celi repeat ayay isku macno yihiin ereyga saddexaad reverse waa inaad wax ceshatid yes for example reverse the car gaariga dib u celi reverse qabo Soomaalida ereygaas reverse waa meesha ay ka keeneen baydii dhaqan xun waxaa jira Kenya isticmaalaan qof baa wuxuu ku soo diray lacag $10 ah deedna reverse buu ku dhufan uu ka ceshan okay reverse marka waa inaad wax ceshatid rouge waa makeup ka baash okay makeup waxaa jiro bahal yar oo gabdhaha marmarsadaan midkiisa guduudka la yiraahdo ama creamka ah baa la yiraahdaa rouge inta badan adigu waa iska makeup-ka ay gabdhaha wajiga marsadaan yes so for example waxaa leeyahay Amina applied rouge Amina waxay marsatay makeup guduud ah okay erey shanaad rubble maalmahan waxaa aad loogu isticmaalay dagaalka ka socda Gaza ee reer Falastiin ee Yahuud ay gumaadayso of course waxaas waa iska gumaad dagaal caadi ma aha wadad muslimiin oo la gumaaday so dabaqa markii lagu dhufto madfac oo uu daato isagana maal wuxuu noqdaa rubble waxa waayo dhagax iyo burbur iyo jabjab waa isagana maal okay so maalmahan inta badan waxa maqlaysaa there are a lot of children under the rubble carruur badan baa ayagoo dabaqa jijifa gantaal lagu dhufanaya deedna dabaqi baa ku duugma marka rubble waxaa la yiraahdaa burburkaas iyo dhagaxadaas yaryar ee jajabay ee dabaqa ka soo daata debris waa dhici kartaa ereyga lixaad sage waxaa loo isticmaalaa qof xikmad badan ama qof u muuqda inuu xikmad leeyahay for example haddaan ku dhaho elders are seen as sages dadka waayeelka ah waxaa loo arkaa dad maxaa ahayde xikmad badan good ereyga toddobaad satire waa inaad qofka la kaftantid ama hadal kaftana aad ku durtid ku cambaaraysid okay so for example this book is a satire يعني بوغان هذا اللي هو استعماله كفتنا isagoo bulshada cambaareynay it's using humor to criticize the society markina bulshada cambaareysid adigoo kaftan isticmaalaysid baa yiraahdaa satire mockery waa dhici kartaa I hope it makes sense ereyga toddobaad scorn waa canaan qofkina canaanad ku qaylis for example haddaan ku dhaho he showed scorn for lies يعني ugu dhibsaday canaanta wax markaa dhibsatid ama neceb tahay ayaa la yiraahdaa scorn yes something that you hate you dislike it erey tagaalaad seizure waa qalal qofkan marsi uu taagan inuu istustaa ka dhaco dadna uu qalalo inta badan waxyaalo fara badan baa keeno dhaawac qofka madax ka soo gaaro jug madax kaga dhacdo carruur siyarka markay qandhada ku badato way qalaan ayaga laftirkooda dhamaantood waxaa la yiraahdaa seizure cudur kale oo isna waxaa jira la yiraahdaa epilepsy oo qofka ka dhigay inuu istaaginta ka dhaco uu qalalo taqala laguma sheega waa taqaana qofka inuu abka uurka keeno uu jarayo dhamaantood ereyga tobnaad u dambeeyo senate waxaa la yiraahdaa yani aqalka hoose dawladda inta badan waa sharci dejiyaasha ayaga sharci dejiyo they are the legislature marka maqlaysa that senate passed that law senatka ama senatarada ayaa meel mariya sharciga so waa sida baarlamaankii laakiin waa aqalka sare عشان كده I hope you have learned something. Until next time, stay safe and God bless you. Bye bye.